gabadh la ciilay oo xishooto burqanaysa aniga ila eg haddii qof walba uu qiyaasana uu dareemi karaya oo xishoonaysay ma fahanti horta waxaan leeyahay maxay ahayde maamadaas wiilkaa dhashay annaga wiilkan iyo gabadhan way isku laabteen maasha allah way isku faraxsan yihiin maalintii dhawada bilad sharafta la siinayana waxay tiri farxadaydan iyo damaashaadkaygan waxaa ka dambeeyey cabdifataax bay tiri ninkayga oo biladii la siiyey shaadiye waxay ku wareejisay cabdifataax horta labadan qof farxad baa ka dhaxaysa jacayl baa ka dhaxeeya awlaad baa ka dhaxaysa anagu seedigay intaan halkaa usoo fadhiisana afaan ku cayno horta malhiin reerkoodana afaan ku cayna naguma yaala anagu dad xishoodan oo aalbaydo xumaha iyo samuu kala soocan yahay ma garateen waxaan u soo noqonayaa maamadan waxaan leeyahay horta shaadiyo gabadhii dadkii lahaa shaadiye cabdifataax way ka weynta oo waxay la egtay islaanta shaadiye de xamar bay ku dhalatay xamar bay intaa kusoo la ekaatay dadkii la soo kacdayna way jooga dhalina dhafoor bay ku taalaa baa la yidhi ma garateen maamadan cabdifataaxu shaadiye ka weyn bayba dhashayba horta taas intaasaa idinka leeyahay shaadiye waxaa dhashay maamo 20 jir ah oo ka adag bir islaan habar gidiraa dhashay oo joogta oo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi maamadan haddayna ka yareen aan ka weynayn baa dhashay laakiin waxay diidan tahay inay maanta hooyadeed iyo hooyadan ay isku dhacaan bay diidantay shaadiye way xishoonaysay wayna cabursanayd soomaalina maadan reer markaad u fiirsataan soomaali sodoh gabadh walba way garanaysaa micnaheeda ma fahantay gabadhaana horta waa 20 jir 20 milyan haysata way shaadiye duca iyo habaar ay soomaali uga baahan tahay male qofkii intuu rabo inuu ka hadlo uu defiyo ku raadsadaan buu wax ku sheegana wax uu ka qaadi kara male tagtay weeye gabadhan way tagtay cid hiigsan kartay fanaan hiigsan kara iyo majaajilaysta shaadiye hiigsan kara ma jirto waa gabar ducaysan oo aalibeyda oo waalidkeeda duceeyo baariyada ma garatay hadday cabdifataax da farxad ku wada noolaadaana alxamdulilah hadday ku wada noolaan waayaana dee waxa weeye waa 20 jirkaa nin walba u hiigsanayo magaceedana shaadiye shaashkaa la yidhaa meel ku qorta ma fahanteen magac iyo gabadhii lahayd wiilkaygu sirxan yahay war iyada in la sirxadaa baanu ka baqaynaaba iyada in la sirxado waayo dadka waxaa la sirxadaa lacagna haysta magacana haysta maanta qurux bay haysataa lacag bay haysataa magaca bay haysataa qabiil wanaagsan oo ilaahay maaragtay ka taxadiray bay ka dhalatay labada dhinacba shaadiye waxa u baahan tahay male maamaduna waxaan leenahay edeb yeelo tusbaxa ay shaadiye kugu tiri qaado oo maamo saajidka gal wiilkaaga wiil cad baa loo dhalay wixii ilaahay ka siiya dambana waa loo dhalayaa gabadha ka xisho maamooyinka horta sodohaha annaga horta anu Ethiopian ka imid reer Ethiopian galbeedkaasaan degnaa sodohdu way xishootaa shaadiye waxaan leenahay sodohdeed xisho gabadhaasi waa 20 jir 20 milyan haysata inankaaga hadday kala tagaana shaadiye wallaahi oo bilaahi oo tallahi inay dhum dhacaynin xisho baan reerku ha kaa noolaadaan ha kaa dhaqmaanid joojiya edab darrada wiilkaaga waa taqaanaayo sagaashan kaba jaad iyo sigaar busaa u xuqsanayada u soo shaqaysee oo habeen iyo maalin shalmadu huwan oo reerku u soo shaqaysee horumarkuu maanta gaadhayna wallaahi oo bilaahi oo tallahi iyadaa gaadhsiisay ma garateen anugu ilmaadeen real ma caytamo af caytamaa naguma yaallo naag gabadhii rabta inay shaadiye aflagaadaysa caydana 20 jir ba halkaa iyo fadhida maygana noo qaadataa mudna waa idin gala waa mahadsan tahay dhan qurayshay ku soco isar kurli baa ku soco horta baay aniga hadda aniga yar baan hadlayaa ma fahanteen intaas waxaan rabaa in la dhageysto markaas ka bacdi waxaad rabtiin aad dhahdeen ma fahanteen horta hodanay waan ku salaamayaa salaanka bacdi waxaan ku leeyahay walaalay aniga horta wax aanan maqlin anaga social media ku jirna inta badan aanan maqlin ba idinku ogtiin waad naga hormarsantiin horta idinka uun qololkiina arrimo lagu haayo baan imaadaa ma fahanteen de anigu waxaan dhihi lahaa horta inta gabadhan ay tiri hadda hadasho baan dhihi lahaa waxaan idin dhihi lahaa nin iyo naag isqabo iyo sodohdooda ayaga iska kiin og ma fahantay ayaga ay heshiin karo biri ayaga wada dhaqmaya arkaysiin horta wax idinka ina dantiin ahayn bad horta isku lugaysaan wax ina dan ina kula hayn biri kamaan ajar iyo xasaraad midna aan idinka soo galaynin baa horta mar walba aad qolal ka soo furataan aniga hadda idin hadlay biri hadda wax yar igu aragtaan qol baad iga soo furnaysaan hodan oo ima cafinaysaan marka anigu waxa idin dhihi lahaa shaadiyo Soomaalida horta horay uma mahaday ana sodoh waan ahay wiil waan dhalay gabar baan dhalay ilma ii joog qangaara ii joog ma fahantay bari hadii la guursado oo dadkii ay isguursadaan ani bari ka maalin anigu hadaan xumahay oo xagxagata ahay oo gabadha aniga wiilkaygu qaba aan iraahdo naaka maaqtay nasar mutatan
انت تكبر كانت 24 hours raadkeed aan ku taaganahay aniga biyo ima kabanayso ma fahantay Soomaaliduna hore ugu maamahday waxa la yiri sodoh marna waa wad ku dilla marna waa waalid hore Soomaalida hore u maamahday waxa la Soomaali way maamahada baa la yiri been kuma maamaha waxa la yiri been ma noqoto